galabta waxaan halkan u joognaa qayb ka mid ah howlihii wacyigelinta nabadda ee joogtada aan ku soo gudbi jirnay ciwaankeena galabta waxa uu yahay gacanka hadalku xal ma uu yahay khilaafka gacanka hadalku asalkiisu waa marka la kala aragti duwanaado oo laba kooxood ama laba qofood iyo wixii ka badan ay isku khilaafaan aragti ama shay ka wada dhaxeeya taasina ay sababto halkii xal lagu raadi lahay wada hadal in la isticmaalo xoog loo bedelaa haddaba xooggu waxa uu dhalaa ama sabab u noqdaa dhibaatooyin ka dhasha bulshada dhexdooda maxaa yeelay marka laba kooxood ay xoog isu adeegsanayaan ay samayn doonaan ku xadgudub dhanka nolosha iyo maalka qofka sidoo kaleeto ku xadgudubka sharafka iyo nasabka waxaana ka dhalanaysaa xoog sheegashadaas marka labada kooxood ay kala awood roonaadaan in ay abuurto colaad soo noqnoqota oo salka ku haysa xooggii xalka lagu raadinayay in ay abuurto aano daba dheeraata in lagu kala mudnaado haykalka dawladnimada iyo habmaamulka deegaanka in aan loo sinaan ka faa'iidaysiga khayraadka deegaanka in aan loo sinaan ka faa'iidaysiga horumarka nolosha iyo guud ahaan habka maamulka deegaanka haddaba waa maxay xalka khilaafka haddii laga soo hadlay in gacanka hadalku uusan xal u ahayn khilaafka dabcan waxa xal u noqon doona cagsigiisa oo ah wada hadalka iyo wada xaajoodka gacanka hadalku sidiisaba ama waxaan loo yaqaano violence-gu wuxuu ka dhacaa waa murqa iyo awood in la soo isticmaalo khilaafkuna wuxuu ka dhacaa maanka ama maskaxda ama fikirka ama ra'yiga ayaa kala duwan qofka ka aragtida duwan awood kaaga baahnay wuxuu kaaga baahan yahay ka dhaadhicin cadawga haddii aad gacanka hadal isticmaashid ma ciribtiri kartid oo ma jirto qof bini aadan ah oo qoomiyad ama dad ama deegaan meel ku nool inta weeraray dhameeyay ma jirto rabbi unbaa awooda inuu koonka dad ku nool oo qaasa uu rabo inta gediyo inuu hal qof ka soo reebin Allah awooda laakiin dagaaladan kale caadiga ah dadka dhex maraahay dadka aad weerartay ee cadawga aad u aragtid qayb unbaa diri doontaa qaybta kalena waa baaqi noqon doona qaybtaas baaqiga ahi waxa la yiraahdaa waa colaad nool oo baaqi ku ah si kasta oo aad uga adkaatid colaad ay la nool yihiin waa fursad sugayaal haddaba wada hadalka aan u soo daadegno wada hadalka waxa loogu talagalay in khilaafka xal waara looga gaaro haddii aad doonaysid khilaafka inaad joojisid iyo inaad xallisid waa kala labo in la xalliyo conflict management ama resolution saxa in la sameeyo way taan ka hadlayna oo wada hadal furan oo la rabo mustaqbalka in wax lagu bedelo la sameeyo midkaas marka la sameeyo wada hadalku wuxuu toos u abaari doonaa in la daaweeyo fikirkii lagu kala duwanaa sidoo kale wuxuu wada wanaagsan u jeexi doonaa labada group ee is haysay inay horta marka hore positive iska aaminaan wuxuu sidoo kale wada wanaagsan u jeexi doonaa xiriirkooda dambe ee mustaqbalka oo mar haddii laga heshiiyay wixii la isku haayay waxa sidoo kale laga heshiin doonaa ayaha iyo mustaqbalka sidii loo maareyn lahaa sidoo kale wuxuu inta badan wada wanaagsan u jeexi doonaa in bulshadu isku duubni iyo wax wada qabsi laga dhaxlo khilaafkii shalay sida wada hadalka looga heshiiyay wuxuu sidoo kale wada wanaagsan u yahay khilaafka kale ee mustaqbalka imaan doona in wax laga barto khilaafkii shalay sida loo xaliyay sida darteedna dadku ay ku dhiiranaadaan in ka wada hadlaan waxaan wuxuu cashar wanaagsan u yahay bulshada kale ee deegaankaas labadii iskilaaftay ee wada hadleen ayuu cashar wanaagsan u yahay sidoo kale sida darteed maanta waxaan dhiirigelinaynaa in bulshada Soomaaliyeed muddo ay gacan ka hadal ku soo jirtay waxaan dhiirigelinaynaa bulshada dhexdeeda haddii khilaaf uu yimaado in la abaaro qofka maskaxdiisa inaad wax ka bedeshay qofaad iskhilaafteen khilaafkaas waa maskaxda wax ka bedel la hadal qofka wada hadal ku bedel laakiin colaad ha ku aadi waxa la yiraahdaa calooli wixii ay ku bukoto lagu madaweeyo dadka Soomaaliyeed markii hore dagaalada sokeeyay ay bilaabanayeen waxay ka bilowdeen colaad ama caburin ay sameysay dawladda militariga markii dambana ayagii dhexdooda iyo qabaa'ilku waxay isu isticmaaleen awood hadda iyo hogaamiyaasha Soomaaliyeed maanta waxa looga fadhiyaa inay noqdaan dad peaceful ah dad wada hadalka tixgeliya dad horseeda casharo wanaagsan oo jiilka berri ay ka bartaan in wada hadal iyo qaab nabdoon ah ku xaliyaan khilaafaadka
nabada